gudoomiyaha degmada Shaxda ee gobolka Karkaar Mudane Axmed Maxamed Barre ayaa mahad celin ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadatay dayactirka riigga degmada Shaxda oo ay ugu horeyso wakaalada biyaha Puntland kaas oo hormuud u yahay maareeyaha wakaalada Puntland Mudane Maxamed Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsada jaamac dhaga dheere sidoo kalena si ballaaran ugu mahad celiyay ugaaska beelweynta kasii qabay Cabdiraxmaan Harti ugaas Maxamed ugaas jaamac baruur oo qayb lixaad leh ka qaatay kicinta matoorka riigga iyo abaabulkiisa sidoo kale u mahad celiyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo golihiisa wasiirada uu ugu horeeyo wasiiru dawlaha madaxtooyada Puntland wasiir Cabdifataax Cabdinuur ugu dambeyntiina codsi u diray maamul goboleedka Puntland uu ugu horeeyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inay ka caawiyaan in loo qodo riig cusub maadaama riigii hore u taagnaa uu ka dumay oo wax biyo aanu lahayn oo biyihiina hadda ay ka yaraadeen waxaan ka mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyay ceelkii oo saakay shaqaynaya oo aan dibiyadaacitir ay ku sameysay wakaalada biyaha Puntland waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa raggii ka qayb qaatay ceelkaas naga jabnaa muddo 6 bariya raggii nagala qayb qaatay ayaan rabaa halkan inaan ugu mahad cesho gudiga abaaraha heer Puntland oo mahad celinayaa waxaan leeyahay ajir Allah inaan ka siiyo waxaan kaloo mahad celinayaa maareeyaha wakaalada biyaha Maxamed Cabdiqaadir waxaan kaloo mahad celinayaa wasiir dawlaha madaxtooyada isagoo gacan naga siiyay waxaan mahad celinayaa kale ganacsade la taliyay jaamac dhaga dheere oo ahaa mashiinkii dhaqaajinaya inay wax dhaqaaqaan ceelkuna hagaago waxaan leeyahay ganacsade aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay meesha nagala baxday meel khayr Allah kaaga dhigo waxaan kaloo mahad celinayaa ugaas Maxamed jaamac baruur oo isaguna ahaa raggii ka qayb qaatay in ceelka la kiciyo oo habeen iyo maalin u soo jeeday waxaan kaloo aan leeyahay u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Ismaan waxaan rabaa inaan warbixin yar ceelkan aan ka bixiyo ceelkan 14 sano 15 sano buu dhisan yahay markii la dhisana nin ganacsada ah ayaa noo dhisay Xaaji Maxamuud Ismaan khayr Allah siiye haatan ceelkii waa biireeyay oo waa dumay guduhu ka dumay oo kaysinkii la galiyay markiiba wuxuu ahaa kaysin wuxuu yahay bira waana dumay biyuhu wax yar bay ku jiraan 25 daqiiqo goorta biyuhu motorku daarnaado ama 20 daqiiqo ayay go'ayaan solarkuna inta in ka yar buu kicinaya oo dhaqaajinaya biyaha haatan biyihii maanta aanu cabayno ama geliyo yaariyaha arkaysaan ay cabayaan waa biyo marna la maaxinayo marna loo sii deynayo ceelka loo istaarayo waxaan leeyahay halkan baaq dheer aan u dirayaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo golaha wasiirada oo aan ka dalbanaynaa saakay inay noo qodaan ceel ay deegaanka iyo mujtamaca magaaladu ay cabaan maadaama uu deegaanku yahay deegaan aad u ballaaran oo ay ku nool yihiin xoolaha ugu badan Puntland haddana la isku yimiyo reer guuraagi xilliga abaarta isku yimaadeen oo ay buuxo camiran yahay intuu ceelku jabnaana booyada ayaan ku waraabinaynaa ka keenno magaalada Qardho ceel kale oo nagu dhow aan qardhahaynina ma jiro marka waxaan leeyahay madaxweyne waxaan codsanaynaa ceel inaan noo qodid oo aan waliba codsanaynaa mar saddexaad iyo mar afraadba sidoo kale waxa dhankiisa faahfaahin buuxda ka bixiyay riigga degmada Shaxda madaxa sare ee riigga degmada Shaxda Mudane Cabdicasiis Maxamed Yuusuf Faray oo ka warbixiyay xaaladda matoorka riigga degmada Shaxda oo maalmihii la soo dhaafay ay caqabad dhanka biyaha ay ku timi hadda se dayactir lagu sameeyay laakiin sida ay xaqiijiyeen wakaalada biyaha Puntland oo ay u sheegtay madaxa sare ee riigga degmada Shaxda in biyihii ceelka uu soo dabar go'ayo laguna qasban yahay in riig cusub loo qodo degmada Shaxda bismillaahir rahmaanir rahiim meeshan aan hadda ka hadlayno oo joogno oo ka shaqeynayna waa ceelkii Shaxda ceelkaasi hadda ka hor waa dumay waana dawray muddo hadeer 5 cisho ka hor ayuu fariistay ma qayrab dhaan badan oo aanu diray kadib qalab aanu soo helay bombadii iyo birihii tuubooyinka ahaa ceelkii saaka waa kicinay tabartiisu aad bay u yar tahay ceelku waa dumay oo hoosna waa ka duwakaysihiisu bir buu ahaa waana dawrayo biyo la'aan iyo roob la'aan buu la dawray oo horey baa waxa uu sheegay qolada cabirta biyaha marka ceelkaasi markii motorka lagu istaarana 15 daqiiqo buu biyaha ku goynayaa markii solarka la isticmaalo solarka biyaha lagu isticmaalaa 20 daqiiqo ayuu wadayaa sidaas aan ceelka kaga cabeynaa meeshan marka waxay u baahan tahay ceel loo qodo ceelkani waa ceel dumay soo noqodna male kaysihiisuna waa bir hadii uu ahaan lahaa kaysihiisu caag wuu sii shaqayn lahaa ama waa la buufin lahaa laakiin wuu dumay oo kaysi birtaha waa go'ay marka waxaanu u baahanahay
وقولنا maamulka oo hadeerna naga caawiyay kicintiisa waana uga mahad celinaynaa in loo qodo ceel maanu u baahanahay intaas iyaga ee qolada maamulka aad baan uga mahad celinaynaa maadaama ay noo kiciyeen tabarna aanu weynay ceelka hadda uu noo shaqeynay haba iska biyo yaraadee